Raisulwasaaraha cusub ee ingiriiska Keir Starmer ayaa walaac ka muujiyay xaaladda quusta ee ka jirta marinka Gaza isagoona ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda. Raisulwasaaraha ayaa sheegay inaanan loo dulqaadan karin waxa ka socda Gaza isla markaana uu ku baaqay inaanan la aqbali karin inay sii socoto. Ma ahan mid xaaladdu ay sidaan ku sii socon karto ayuu yiri Raisulwasaaruhu isagoo intaasi ku daray in intaan kadib aysan dunida indhaha ka sii daawan karin xaaladda Gaza. Xaaladda ka jirta Gaza waa mid aan loo dulqaadan karin, duniduna ma sii eegi doonto iyada oo dadka rayidka ah aan waxba galabsan ay wajahayaan dhimasho, cudur iyo barakac ayuu yiri Raisulwasaaraha ingiriiska oo shalay galab ka hor hadlay baarlamaanka. Raisulwasaaraha ayaa afka ku ballaariyay in baahi weyn loo qabo in si dhaqsi ah loo joojiyo dagaalka, in la fasaxo gargaarka bini'aadanimo iyo in la sii daayo lahaystayaasha. Waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxda Israail iyo maamulka Falastiiniyiinta uuna u sheegay xaqa ay Israail u leedahay ammaankeeda iyo in la soo celiyo lahaystayaashii Israailiyiinta ee lagu qafaashay weerarkii Oktoobar 7. Waxaanu sidoo kale u cadeeyay in xaaladda Gaza ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, duniduna aanan iska eegin doonin in dadka la leynayo ay yihiin shacab aan waxba galabsan oo ay ku jiraan haweenka iyo carruurta ayuu yiri Starmer ayaa carab dhaway in siyaasadda London ee ku aadan raadinta habad joojinta ay tahay halka kaliya ee lagu xalin karo dhibaatada.